Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada. Maanta hadduu Allah yiraahdo waxaan idinla wadaagi doonaa cuntooyinka ka qayb qaata inay u fududeeyaan hooyada foosha. Foosha iyo xilliga uu cunuga dhalanayo waa wax ku socda qoraal Rabbi. Mana jiro qof xukumi karo ama go'aamin karo, balse waxaa jiro waxyaabo fududeeya oo hooyada haddii ay sameyso ka caawinaya in koolada waxa loo yaqaano Soomaali ahaan ama ay u jilicdo soo bixitaanka ilmaha uu u fududaado. Qodobka ugu horeeya oo soo qaadanayna wuxuu yahay qolfaha. Qolfaha wuxuu ka qayb qaataa in uu jilciyo ama hooyada ugu fududeeyo koolada. Qolfaha markii caadi u isticmaasho waxaad dareemaysaa xoogaa inuu kuleel yar leeyahay. Haddii shaaha hooyada ay cabayso ay u badiso qolfaha oo intee tunta ay ku darto, wuxuu ka caawinayaa in uu u jilciyo koolada ama uu u fududeeyo foosha. Qodobka labaad waxa uu yahay cananaaska. Cananaasku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka ama fruitiska ka mamnuuca hooyada inay isticmaasho inta ay uurka leedahay. Cananaasku wuxuu keenaa wax loo yaqaano contraction ama minka in uu sameeyo inuu isku soo aruuro. Sida awgeed wuxuu ka qayb qaataa haddii hooyada isticmaasho markii ay tahay xilliga foosha uu u fududeynayaa, balse intay uurka leedahay waa ka mamnuuc inay isticmaasho cananaas. Qodobka saddexaad waxa uu yahay babaayga. Babaayga wuxuu ka mid yahay cuntooyinka jilciya caloosha. Sidoo kale waxa ay qayb ka qaataan in hooyada ku imaado ama uu u keeno wax loo yaqaano contraction oo ah xanuun. Sidaa awgeed babaaygu wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ama fruitiska hooyada u fududeynayo foosha. Xitaa haddii hooyada ayadoo bilaheedii dhamaysatay ay dareento inay caloosha fadhiso oo ay isticmaasho wuu u fududeynayaa oo caloosha ayuu socodsiinayaa. Markasta oo caloosha hooyada ay jilcan tahayna fooshii way fududaanaysaa. Sidoo kale waxyaabaha fududeeya foosha waxaa ka mid ah malabka. Malabku wuxuu ka qayb qaataa hooyada inay contraction ama xanuun ugu yimaado, kaasoo ugu dambeyn jilcinaya koolada. Aad ayuu ugu fiican yahay inay hooyada dhowr qaando ka qaadato xilliga ay foolanayso. Sidoo kale waxyaabaha hooyada foosha u fududeynaya waxaa ka mid ah shaaha qandhacaya oo wax yar macaan ka ah, sababtoo ah hooyada wuxuu siinayaa energy iyo tamar. Xitaa haddii qolfaha markay isticmaalayso ay shaaha ku badsato, aad ayuu ugu fiican yahay. Wuxuuna ka qayb qaataa hooyada inuu u keeno xanuun kaasoo debcinaya koolada. Shaaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fiican ee hooyada inay isticmaasho markay foolanayso, waayo wuuna fudud yahay qaadashadiisa. Energy iyo tamar ayay ka helaysaa, wuxuuna ka caawinayaa kooladii in ay dabacdo oo ay jilicdo. Sidoo kale waxaa ka mid ah timirta. Timirta aad ayay uga qayb qaadataa hooyada inay u fududeyso foosha, waayo qaadashadeeda aad ayay u fududahay, waxayna ka helaysaa energy iyo tamar. Xilliga ay hooyada foolanayso waa lagula taliyaa inay isticmaasho timir. Markii laga soo tago cuntooyinka fruitiska iyo waxyaabaha la cabayo hooyada faa'iidada u leh, waxaa jiro waxyaabo kale oo hooyada haddii sameyso ay ka caawinayaan inay u fududeeyaan foosha. Waxaa ka mid ah hooyada intay ku jirto xilliga foosha inay badiso socsocodka oo ay iska ilaaliso jiifka badan. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha u fududeeyo hooyada inay isticmaasho waxyaabaha energy-ga ay ka helayso oo tabarta siinayo sida shaaha oo kale. Aad ugu fiican yahay xilliga ay hooyada foolanayso. Hooyada xilliga foosha hooyooyinku ay ku kala duwan yihiin, qaar ma taga qaarna ma tagaan. Even haddii hooyada ma tagayso oo aysan waxba qaadan karin, waxaa qasab ah in faleembooyin lagu caawiyo si tabar ay u yeelato. Waana arrin muhiim ah
in dhakhtarkeeda ama umulisadeeda ay la socoto xaaladeeda ee ku caawiso faleembooyin iyo wixii lamid ah. Sidoo kale waxyaabaha hooyada caawinaya waxaa kamid ah in maskax ahaan ama moraalkeeda la dhiso. Waxaa dhici karta hooyooyinka qaar inay foosha ku dheeraato oo ay waqti ku qaadato. Waxaa qasaba in la dhiirigeliyo, loo sheego inuu wax yar u dhiman yahay, yacni cunuga inuu soo degay, xaaladda hadba meeshay maraysa in lala socodsiiyo oo maskax ahaan hooyada loo dhiso. Even haddii jiraan xaalado halis ah aan laga qarinin si hadhow markay maqasho ay u nixin oo loo sii sheego ay la socoto. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan ku soo biiri channelkeena oo subscribe saar.